goobta aan ku suganahay ayaa goobta uu shilka arxan-darrada ay ka dhacay waxaana sida idiin muuqata labada wiil Soomaalida ah oo ahaa halka aragtaan iyadoo muhaajiriin badan oo Afrikaan ah oo qaarkoodna ay yihiin Soomaali ay soo doorbidaan siday u soo gaari lahaayeen qaaradan Yurub waxaana afaafka hore laga soo galay qaaradani ka mid ah dalkan Talyaaniga oo ay Soomaali fara badan ku haysato nolol xumo waxa sidoo kale aan la kulmay qaar ka mid ah jaaliyadaha Soomaalida iyagu ku nool magaalada Rome ee dalka Talyaaniga si aan wax uga weydiiyo inta ay ka og yihiin masiibada wiilashaasi haleeshay rahmatullahi wa barakaatuh waxaan halkan ka salaameynaa ama u tacsiyeynaa eeladii horto inanka ka geeriyooday iyo inta dhalinyarada saaxiibadii ah ee Rome jooga geerida waa geeri fool xun oo nagu timid hadduu ilaahay yiraahdo waa wax qornaa xaqoodiina wax lumay maaha oo wadankani dhibaato jirto ragga bad bay ka soo badbaadeen meel walba ka soo badbaadeen si fool xun way u dhinteen ilaahay jannada ha ka waraabiyo halkaan joognana dawlad baa joogto baaritaankii ugu socdaan wixii dib ugu dhaceen dawladda Talyaaniga maalmahan daraadaha baa dawlad la dhisay oo dawlad la'aan baa ka jirtay arintoodii meel fiican ay maraysaa inna lillahi raaji'uun aad iyo aad baan u taxsiyeynaya ehelkii iyo qaraabadii ay ka baxeen labada marxuun ee Soomaaliyeed runtii maxaa la yiraahdaa waa fal xum oo qof kasta oo muwaadin ah ka naxo oo marka hore waxaan u mahadcelinayaa telefishinka caalamiga Home Cable TV oo caawa ku sugan wadanka Italy gaar ahaan caasimadda dalka ee Roma mar labaad haddaan arrintan ka dhacday foosha xun ee Roma ka dhacday aad waxaan uga tacsiyadeynayaa ehelkii iyo qaraabadii ay ka baxeen labada marxuum runtiina waxay ahayd geeri aad u xun oo ina wada saameysay masiibadan ka dhacday dalka Talyaaniga magaalada madaxdiisa Roma ayaa noqonaysa masiibadii ugu xumayd ee abid ku dhacday guud ahaan dadka Soomaalida gaar ahaan dhalinyarada waxba galabsan iyagu soo maciin biday dalkan Talyaaniga waxaana tan ay noqonaysaa arrin ka dhanax xuquuqda insaanka iyadoo wali aanay ka hadal hay'adaha u dooda xuquuqda bini'aadamka waxa xusid mudan in aan wali la asrin leeyahay meydka 28 January 2013 ku dhintay magaalada Rome ee dalka Talyaaniga waxaana dowladda Talyaaniga sheegtay inay wali wado baaritaano ku saabsan qaabka dhimashada wiilashaasi labada ah Mustafa Xaaji Aadan Haaruun telefishinka caalamiga ee Home Cable TV Roma Italy